iyadoo doorashada Soomaaliya meel xasaasi ah maraysa isla markaasna senatarada aqalka sare uu noqday meesha ugu adag ama kuraasta ugu adag ee la iska bursanaya ayaa waxa ay timid dood adag oo horeysa soo xilista xubnaha doorashada aqalka sare ee u taagan gaar ahaan Galmudug oo ah meesha isha lagu wada hayo waxaana soo baxaya warar dheeraad oo ku saabsan cidda arintani ku soo bixi karto inkastoo qorqor laga sugay inuu soo magacaabo ama uu soo gudbiyo liiska haddana waxaa jirta xog sheegaysa in senatarada qaarkoodba la reebi doono axmed cabdi kaariye qorqor waxaa la sheegay inuu weli xal mastuuri ah wado isla markaasna wax badan la xiirinayo oo xaalku ay noqon doonto mid awood siyaasadeed adeegsan doonto ugu dambeyntii senatar yuusuf geelugaas oo loo yaqaano dhega ayaa waxaa macquula inuu ka haro doorashada aqalka sare sida ay beesha dudubla sheegtayna weli go'aantaasi lagama gaarin dhegey oo saaxiibkiis ah axmed dhuxulow dhagdheer ayaa 17 sano waxay isku garab fadhiyeen siyaasadda laga yaabeeba inay kala irdoobaan iyadoo dhagdheer ay u badan tahay in dib aqalka sare loogu soo doorto dhinaca kale cabdiwaaxid cilmi qoonjeex oo reer caabud waaqa ayaa isna macquul tahay in laga reebo aqalka sare haddii arrintu sida hadda ay wax ku socdaan ay ku soo idlaato qoonjeex iyo dhegey waxay lumin doonaan kuraasta aqalka sare iyagoo u rogan doona ama u wareegi doona dhanka golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya wax kasta waa isbedeli karaan iyadoo cid walba ay doonayso inay guusha iyadoo hesho arrintan ayaa u muuqata in siyaasaddu aqalka sare ay noqotay kuraasta ugu adag ee lagu tartamayo iyadoo aan la gaarinba kuwa golaha shacabka oo iyadu markii horeba loo baaraandegay inay noqon doonaan kuraasta sida aadka la isugu soo sharaxi doono inkastoo aqalka sare ay noqonaysa baa yiri mid taageerada dhanka madaxweyne farmaajo iyo mucaarad ku kala qaybsanaanayeen haddana waxay arrinta deegaanada Galmudug u muuqataa in senataradii ugu shacbiyada ama ugu siyaasadda adkayd ay ka soo bixi doonaan sanadkan inkastoo arrintu ay tahay mid u dhaxaysa villa Soomaaliya iyo mucaaradka oo iyagu ku kala baratamaya soo saarista meelista senatarada ugu badan ee taageerada labada dhinacba qorqor waxaa laga sugayaa inuu soo saaro liiska kama dambaysta ah kuraasta aqalka sare iyadoona guddiga doorashada ay waraaq u direen shalay ay ku sheegeen in qorqor laga codsanayo in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u soo saaro liiska xildhibaanada aqalka sare uu doonayo in ay tartanka ka qayb galaan qorqor dhinaca kale waxaa haysta arrinta yuu xulan doonaa labada senatar ee u taagan halka kursi ee matalaadda oo ah siyaasiga ama madaxweynihii hore ee deegaanada Galmudug waa xaaf iyo weliba soo kale senatar cabdi qaydiid oo isaga awood siyaasadeed xoogan ku leh deegaanada Galmudug xaaf oo ah musharax u taagan aqalka sare ayaa isaga tegay magaalada Dhuusamareeb isbuucan waxa uuna sheegay inuu u taagan yahay kursigaas halka qaydiid uu isagu ku maqan yahay furinta hore ee dagaalka oo ururka al-shabaab lagula jiro wararka ayaa waxay xogta sheegaysaa in u badan tahay in labadan senatar la kala saaro iyadoona qorqor ilaa hadda uusan qaadanin go'aanka kama dambaysta ee ku aadan cidda liiska uu soo saari doono labadan dhinac dadka siyaasadda daruusa ayaana ku sheegaya in haddii uu qorqor go'aansado in uu soo wada saaro labadan xubnood ay noqonaysa baa yiraahday in xaaf uu ku soo bixi doono maadaama taageero xoogan uu ka haysto baarlamaanka Galmudug balse waxaa laga wada sugi doonaa inta liiska uu soo saari doono madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug qorqor dhanka kalena gudoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabelle waxa uu daqiiqado yar ka hor ku dhawaaqay liiska musharaxiinta waxa daqiiqado yar hor ku dhawaaqaan dhehe guddi uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan doorashada aqalka sare guddigan ayaana ka kooban ilaa iyo 13 xubnood waxa uuna sheegay in guddigan ay shaqadoodu tahay sidii ay u dardargelin lahaayeen soo saarista iyo qabashada xildhibaanada aqalka sare waxaana guddigan gudoomiye looga dhigay Faysal Cabdiwali Xasan halka gudoomiye ku-xigeenkiisuna uu yahay Maxamuud Axmed Gacal gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo ku sugan Muqdisho kana maqnaa xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle muddo dheer ayaa magacaabay guddigan
oo badankoodu ay ku sugan yihiin caasimada dalka ee Muqdisho. Magaala madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle Joor ayaa madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabelle ka maqnaayeen bilihii la soo dhaafay, iyadoo magaaladana ay wajahdo fatahaado xoog leh oo saameyn ku yeeshay dadka, iyadoo tani loo sababeynayo sababta uu awood xoogan u lahayn maamulkani in loo sababeynayo inba mas-uuliyiinta ka qabanaya xilalka deegaanadani ay yihiinba kuwa aanba guud ahaanba ku nooleen deegaanadan, balse intooda badan kharashaadkooda iyo weliba sidoo kale noloshoodu ay tahay mid ay ku tiirsan tahay gudaha magaalada Muqdisho. dhanka kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa ka hadlay warar dhowaan lagu baahiyay baraha bulshada internetka, kuwaas oo sheegayay inuu ka haray tartanka xilka madaxweynaha isla markaasna uu tanaasulay musharax kale. Shariif oo warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay, waxa uu shaaca ka qaaday inuu aaminsan yahay dimuqraadiyadda iyo weliba in la galo tartan xor ah. musharax Sheekh Shariif ayaa sidoo kale xusay inuu dadaal soo geliyay dalka uuna ka qaybgalayo doorashada soo socota ee madaxweynaha. sidoo kalena wuxuu meesha ka saaray inuu jiro heshiis ay waxgaradka beesha mudulood ku gaareen inay isu tanaasulaan musharaxiinta qaar ee u tartamaya xilka madaxweynaha. waxa uuna qoraalkiisa ku yidhi, sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan caddeeyo inaysan waxba ka jirin wararka ku saabsan shir ay yeesheen waxgaradkii siyaasiyiinta beelaha mudulood oo lagu gaaray heshiis isku tanaasul ah oo la dhex dhiga musharaxiinta qaar, ayuu sii raaciyey. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaana waxauu sidoo kale dhawaqa ka soo yeeray ee ahayd hadalhayntii baraha bulshada qabsatay saacadihii lasoo dhaafay oo ku aadaneed in musharaxiinta mudulood ay qaarkood isku tanaasuleen. si kastaba hadalka waxa uu ku soo aadayaa xilli xasaasi ah, islamarkaasna haatan lagu guda jiro xilligii doorashada iyada oo la bilaabay soo xilista xildhibaanada baarlamaanka ee aqalka sare. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaana waxa uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee dowladda kumeel gaarka, islamarkaasna waqti adag madaxweyne ka soo ahaa dalkan. waxa uu sidoo kale sheegay in sanadkan uu rajeynayay in uu hanto xilka madaxweynaha ee Soomaaliya.